نفيسة أحمد محمود إفراح أحمد محمود ولاalo labaduba waxay wadaagaan inay arag laayihiin balse tani kama reebin in si siman ay wax ula qaybsadaan asagooda sida waxbarashada labadooda tobanka arday u horeey galaaskooda kaliya 46 arday ay ku fasalaayeen waa bilowga Oktoobar 2020 waxay u fariisanayaan imtixaanka qabuulka jaamacadda oo u bilow ku biritaankooda jaamacadda tan waa sida kaliya oo ay nafsadooda ku qancin karaan maadaama ay dhaysteen heerarka waxbarasho ee iskuulka labadoodu waa fasal wadaag oo waxay bartaan culuumta sharciga iyo qaanuunka oo ay ka dhigtaan jaamacadda Muqdisho dadaalkoodu waa ka sareeya ardayda ku fasalka ah ee awoodi kara in ay wax arkaan waxa qariib ah la yaab leh macallimiinta qaarna ay sheegeen maadaama kulliyaddan kamid ahay ardayda intibaaha badana markaan cashar ka dhamay su'aal weydiiyo nala socdo inay ayaga dadku u horeey ay yihiin marka waxa la dhihi karaa marka galaasku saasay ku ahaayeen weligood maalin ma maqnaanin aabahooda keenay inkastoo muqlaasna ay ku ahayd qarar la siiyo waalid fiican oo sharaf ugu dhalay laakiin weligood maalin ma gaabin galaasna ayaa u horeey ayaan u dambeyn jiray نفيسة إفراح waxay ifka yimaadeen iyaga oo aan awood u lahayn in ay wax arkaan aragti la'aanta waxa qoys ahaan ku weeliya gabar iyaga ka weyn oo jaamici ah iyo wiil yar oo xaafidul quraan dhowr jeer naqtiimi qolkeebe iyaguna waa sanadka koowaad ee heerka jaamacadda tani waxay ku tusinaysaa halganka uu Aabe Axmed ugu jiro horumarka caruurtiisa isaga oo maalin waliba ku keena gaarigiisa xitaa haddii uu maalinkaas soo raacin waxa ku baxda gaariga ay karistaan lacag dhan $10 maadaama xaafadda iyo goobta jaamacadda ay aad u kala fog yihiin Aabe Axmed waxa uu tusaale la mahdiyay u yahay waalidiin qaar oo aaminsan in caruurta lixaadkooda dhamaystirnayn aysan wax baran karin